bismillahi raxmaan raxiim 15 sano imika waxaan soomaalida yurub joogta ee aan sheeko wadaagno ama dariiq ku kulanno ama aan jaar noqono ama dan kala hayso haaye keento waxaan ku lahaa ganacsi baynu u baahannahay waa inaynu ganacsiyo yaryar aynu furanno waan ogahay in ganacsigu qof kasta aanu u qalmin qof kasta ganacsade ma noqon karo sababtoo ah dadka qaar baan doonahayn inay ganacsade noqdaan dadka qaar baa doonaya inay dad unu shaqeeyaan shaqo tagaan 8 saacadood ama 10 saacadood soo shaqeeyaan guriga ku soo noqda doonaya kuwaas ganacsigu iyaguna ma doonay isaguna ma doonay ganacsigu waayo waxa doonaysaa iyaguna waxaasina uu ku doonaya xitaa haddaanay waxaasi naf lahayn way ku doonaysaa marka ganacsigu wuxuu ku fiican yahay xorriyad baad helaysaa lacag badanna waad helaysaa xorriyadda waxaan ka wadaa qof kuuma sheegayo goortaad suuliga tegayso iyo goortaad ka imanayso iyo goorta shaqada soo galayso iyo goortaad baxaysa iyo waxa aad qabanayso intaad shaqada joogto adaa noqonaya maamule adaa dadka wuxuu sheegaya adaa qof noqonaya mas-uule xilkas hogaamiye soomaaliga ka qaar baa soomaaliga leadership iskala soo boodaya leadership sidee leadership loo yiraahdaa waan garanayn xilkas hogaamiye xitaa maaha waa xilkas weeye ayaad noqonaysaa ganacsiga lacag badanna waad samaynaysaa xorna waad noqonaysaa laakiin wuxuu u baahan yahay sabir wuxuu u baahan yahay inaad waqtigaaga geliso aanay maalmaha qaar wax kama soo baxayaan xitaa 7 bilood sanad inaan waxba ka soo bixin wuxuun geliso taasaa loo baahan yahay waayo marka wax ka soo baxaan wax weyn baa ka soo baxaya faa'iido leh talabaad waxaad u baahan tahay carruurtaadaad baraysaa waayo carruurteena imika shaqo tag ayay ku odhanaysaa hooyadii aabina iga bax guriga haddaad shaqo tagaayin xaguu tagaa ilmihii gabadhii xaggay tagtaa adigu wax u bilow adigu soomad wadda ka soo gelin yurub maad siman haa dhowr 10 sano maad shaqaynaya ama 20 sano maad shaqaynaya ama 60 sano maad shaqaynaya maxaaba ma haysid marka maxaa ciyaalkii aad iyaga ka lugoynaysa inaad wax u bilowdaa way ahayd adaa khasaariyey inaad wax bilowdaa way ahayd inaad ganacsi bilowdaa marka waxaan kugula talinaya waranoo Finland jooga waranoo Holland jooga waranoo Ingiriiska jooga ayay dadka cadaankii waxay weydiiyeen sambuusi iyo laxoox qaarkii canjeera u taqaaneen iyo suuga haddaad maqaaxi yar dabakaaye yar furto oo aad iibiso sambuuska iyo laxooxdii suqaarkoo keliya maalinta ugu horreysa inta kaa soo gasho ayaa karada kaa bixinaya maya waan la noqday taa haddaad maalintii 70 koob oo shaah oo minginiya iibiso ama 1 euro iyo bara iibiso kirada dhan bisha maalintaa keliya shaahoo keliya kaa qaba shaahoo keliya ayaa meel kaa saaray waxaan kugula talinayaa soomaalidoo keliya inaa isku hadlaynin dadka waddanka jooga waa inaad wax ka iibiso anigu Finland aan tegay hablan Finnish ay igu yidhahdaan meel maraya sawir qaadaya raashinka soomaalida ma jeceshiin baan ku yidhi haa bay igu yidhahdeen sambuuska oo maxaa lagaa u tegi weydeenoo meesha ma tigi karno oo dad badan baa joogo anaa idiin samaynayaan ku yidhi Finland waan ku cusub ahay cid kama aqaano islaan aan dariiq kula kulmay soomaaliyaan ku yidhi shaqa ma doonaysaa shaqaalaysi gabar kale shaqaalaysi waayo waxbaan doonaya inaan qabto lacag badan maan hayn waxaan odhan karayaa lacag ma haysto alla waddanka waan ku cusubahay sharcigiisa ma aqaano muxuu ahaay halkaa waan bilaabay miiska xagan ka keenay yar Falastiiniyan masaajid kula kulmay baan ku yidhi oo maqaaxi meel isagoo wax ku iibinaya maalin raashinka kala nooca ayaan ku yidhi miiska xagad ka heshay dalaayada taandhada anaa ku siinaya igu yidhi mid iyo lugteeda soomaalida waxay igu yidhaahdeen may waddanka joogtay 30 sano waad Finnish waxba kaama iibsanayaan sharci baad u baahan tahay inaad soo qaadato waraaq waxaasoo dhawaan ka baxay oday Finnish oo muraayad Finland waxay leeyihiin waxaanan ku arag Yurubtan kale baaskiilada xabkooda hore waxay ka dhigeen ayay meel weyn ka sameeyey marka baaskiilada khatara ayay wax ku iibinayeen muraayadaha la xidho kulaylaha waa xilligii kulaylaha waxaan joogaa waddanka 4 bilood baan joogaa waxaan ku yidhi gabadha meel kalaan ka soo heray waxaan ku odhan karaya cid kama aqaano marmarsiyaan samaysan karayay lacag badan ma haystaan odhan karayay
sharciga waddanka ma aqaanaan kuri Soomaaliya waddanka joogta waxay ku yiraahdeen waxba kama iibsanayaan finishka macaamiil ma haysto sharciga baad u baahan tahay waxaasoo dhan baan xarigaasoo dhan baan ka garaacin karayay marmarsiiyaha laakiin xarigaasoo dhan marmarsiiyahaasoo dhan waxaan uga baxay muxuu ahaa waxaan doonayeyba ayaa dariiqaan fadhiistay saa u kala dhigtay waxaygii 4 saacadood baa lagu kala yaacay afka islaan kale sii shaqaalaysiisay gurigiis ka fadhida sii shaqaalaysiiyey marka waxbaad qaban kartaa naagtii bangiga ii furaysay madcan baan furtay 7 bilood ka bacdi waxay igu tiri waddanka 7 bilood baad joogtay Finland kombiyuutarada isku xiran xilligaad soo gashay wax oo dhan way kugiin ay igu tiri intaas waddanka joogtaa may waraaqadan ku buuxiyaa aragta intaas waddanka joogtaa sidee baad ku keentay inaad dadkii waddanka ku dhashay aad dhaafisa waxaan ku yiri dadka ma doonayaan waan doonay waxay igu tiri ma horad samayn jirtay baan ku yiri weligay ma iibin sambuus iyo raashin toona ma iibin baahida jirta ayaan dadka markaan arkay inay u baahan yihiin talabaad Soomaalida dhaqanka raashinkeeda waxaan u iibinayay in colaada Soomaalida lagu hayaa yaraato ka cunsuriga sambuuskaaga cunaa iyo bariiskaaga cunaa la markaa waa bariiska Soomaali sambuuska Soomaali cunsurnimadiisa yaraanaysa aniga habkaygu wuxuu ahaa buugaan ka qorayo ay cunsurinimada Soomaalida laga yareeyo finishka dadka aan ku bedelo buug iyo muxuu ahaa documentary muuqaal raashinkuna wuxuu ii noqday waxaan u isticmaalay waayo cunsuri kasto raashinkaaga cunaa cunsuri kasta ma noqonayo oo isbedelaya anaa taa ku huba ana aqaan soo maray marka iibi meesha joogto wax ku iibi jaarkaaga ka iibi marka hore bilaash ku sii wax guriga ku sameey imika xawaash baan guriga ku sameeynayaa waxaan tusay dadka xawaashi waxa ma aqaano hayl ma aqaano waxba laakiin waxaan tusay dadka wax iibin karto ma waxaad haysto bacaha guriga hilibka lagu xidhxidhaya dad dariiqan dadka soo siinaya wiiga damana waan ka iibinaya waxaan ku tusayaa inaad wax kasta samayn karto ay tahay doonitaanka kaliya wax iibi